inta loo yahay 10 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ayaa uga dhintay weerarkii fashilmay ee habeennimadii xalay ku soo qaadeen nabadiidka xire ciidanka xoogga dalka ku lahaayeen daanta galbeed ee degmada Baardhade halka gacanta lagu soo dhigay askari ka tirsan raggii weerarka soo qaaday iyadoona ay xusud mudan tahay in weerarkii xalay cadowga looga dilay hogaamiyihii watay dagaalka iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan isgaarsiinta casriga iyo waxyaabo kale saraakiisha ciidamada guutada tobnaad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gadow ayaa xaqiijiyay in wali howlgal ku socdo isla markaana cadowga lagu saarayo deegaanada ay ka soo qorsheeyaan weerarada ay magaalooyinka qaar ka soo abaabulaan Ibrahim Maxamed Cusmaan waa askarigii lagu soo qabtay goobta dagaalka oo warbaahinta ay u soo bandhigeen saraakiisha ciidanka ayaa ka warbixinaya weerarkii fashilmay ee xalay saakum baan dareemay dagaalka waxa la dhammaqiimeeyay waxaan moodaynaa ragga oo meeshan ku soo weerarnay inay jawaan suuq badeeda marka weerarka soo qaadaysan hadii waxaan ahaynaa rag 100 meeno diraa la soo qabtay meesha wax ku soo gaaray hadda oo dawladda ay aragtay waa 10 Abdullahi Nuur Xasan Cadow gudoomiyaha degmada Baardhade gaashaan la dhexe Cusmaan Sheekh Abdi Qorrax abaanduulaha guutada tobnaad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gadow iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qasaaraha nabadiidka loo geystay weerarkii xalay ee maleeshiyaadku ku soo qaadeen daanta galbeed ee degmada Baardhade bacdu xalay abaara 8 barkii ayaa waxaan soo weeraray kooxda al-shabaab ee ugu ayagoo doonayay in ay magaalada maxaan ku raadayay arqalateeyaan ama dadka saa'imiinta xilliga ayada suxuurta u diyaar garoobay ay ku dhibaateeyaan way ka soo weerareen magaalada dhanka buundada dhinaceeda kale galbeedka ah halka ayada waxa ku gaartay khasaare aad iyo aad u fara badan sidaad ka arkaysaan TV-yada waxa lagu dilay 10 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab meesha ayada ah tiro badan oo kalena way qaateen way jiiteen ilaa waxa looga soo haray cali xareed ayagoo la sii cararayo intaan 10 ka waxaan intii goobta looga reebay iyo in dhex looga soo qabtay waxa kale oo gacanta lagu soo dhigay ninka aad arkaysaan oo hadda ku sugan meesha oo arkaysaan in caruur iyo la soo maran habaabiyay wuxuu sheegay inuu ku dhashay degmada Jamaama deganaana hooyadii iyo abiye meesha deganaayeen muddo bil ana lagu hayay kabis iyo ceel cadaa gaarkeeda isla haddana dagaalka hore laga soo galiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed yaa xalay gacanta ku dhigay dagaalkii waa lagu qabtay hadda uu nabad qaba oo badbaado qaba saadarkiiseen hadii dawladda wuxuu ka qabaa rajo wanaagsan marka waxaan ugu baaqaynaa nimanka khawaarijta in ay ka toobad keenaan waxyaabo ay ku jiraan oo dawladda maxaan ku raadayay iyo maamulada isu soo dhiibaan inta ay maxaan ku raadayay jaaniska ay haystaan haddii kale meesha ay maanta yaalaan oo kala la soo dhigi doona hadii la yiraahdo annagana xoogga dalka Soomaaliyeed ee maamulka degmada waxaan u diyaarsanahay mar walba inaan khawaarijta ribaaxo iyo jab aan gaarsiino meel alla meel ay ku sugan yihiin haday weerar ku yimaadaan iyo hadii aan raasanabo waxa dhacday in ay guuldarro kala kulmeen meesha ayada ahayd inta kadib ogama aan harin inta ayada ahayd oo in meesha inagu soo weerareen aan isaga caabinay oo kaliya oo ma aan harin waxaan sameynay oo kale in aan wada kasta ay ku baxeen aan kula baxnay isla markaana aan ula dhaqanay dad burcad ah oo magaalo boob ku sameeyay oo kale sidii loola dhaqmi jiray inaan wadooyinka ma garanaysaa aan uga soo reebreebno meydad iyo dhaawacyo aan uga reebnaan ku sameynay ilaahay baa arrintaas nagu garabsiiyey dadka meesha ay dhibaatada ku gaartay oo ka mid ahaa nimanka shabaabka ah oo meesha ku dhammaaday waxay ahayn 10 shakhsi waxaa kaloo noo suurto gashay inaan askari ayaga ka tirsan aan si nolol aan ku soo qabanno soo qorgiisa iyo booskiisa sita waxaa kaloo noo suurto galay in aan nimanka aan ka furanay qalab hubka qaybihiisa kala gedisan oo u badan hubka gacanta oo ay ka mid yihiin bambooyin waxaa kale oo ka mid ahaa qalabka isgaarsiinta oo hanseedyada loo yaqaan ayaa ka mid ahaa saa u arkaysaan hadda kan oo kale ayaa ka mid ah qalabka aan ka soo reebnay oo isgaarsiinta waxyaabihii aan ku guulaysanay ka mid ahayd markii aan isgaarsiinteeda qayb ka mid aan gacanta ku dhignay in ay noo fududaato haddana meesha aan ka dili lahayn ayaga inaan ka dilin mar labaad alxamdulilah rabbil caalamiin
waxaa kaloo ilaahay u mahadcelinaynaa in wax khasaare ah haba yaraatay magaalada dhexdeeda dagaalka uu ka dhacay dadka shacabka wax soo gaaray ay jirin ilaa waqtigan oo nala soo gaaray oo raboor uusan jirin wax dad soo gaaray iyo wax hanti soo gaaray midna aysan jirin Omar Idris Ahmed